arrintii ay ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka arrintaas lama qabno gabdhaha Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan shareecada diinta islaamka waafaqsanayn iyo ilaahayna raalli ka ahayn lama qabno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابت دم waxaan leeyahay soo dhawaada asxaabta cusub ee maanu banagu biiraysan waxaan leeyahay welcome soo dhawaada kanaalka waa kanaalkiini waxbaan kala faa'iideynaa asxaabtii hore nala joogtana waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin la jooga aan la joogtiin maanta waxaan rabaa barnaamij yar inaan ka hadlo oo la socdo barnaamijkii genderka iyo ku saabsanaa xeerka jinsiga horta wax walba ay waxay kaaga baahan yihiin inaad soo dheerisid marka hore baasaboorkeena maalinleed waxaan arkay wiil ka sheekeynaya markaas ka bacdi aan fiiriyo horta inaan anaga dhan wax akhrin baasaboorka Soomaaliga waxaa ku taala genderna micnaheeda reer galbeedku waxay ka dhigtaan waxay rabtaa noqon kartaa marka horta kelmadaas oo soo noqnoqotay oo xildhibaanad Sacdiyo ay iyo dumar badan ay yiraahdeen hal la ansixiyo xeerkaas horna waan uga hadlay qaybtii labaad aan rabaa inaan ka hadlo hadda xildhibaanad oo ka hadashay oo liira farxiyo ayaa si fiican u taabatay culummadeena qayb kamid ah ayaa waxay yiraahdeen khayr Allah siiye dumarku haday weynaadaan oo 40 gaaraan ama 50 gaaraan yaani diinta xaq jir camal ay ka noqdaan ilaahan ka magan galnay diinteena waa nagu la dhalay waan ku dhaqanay waan ku dhaqmaynaa waan jecelnahay in diinta islaamka aan nagu la dhaqo oo culummadeenu ay nagu hagto aad baan u jecelnahay waxaan gaaladu wadana waxa keenaya haddii aadan adiga isku tashan waa lagu talinaya adiga hadaada isku tashan waa lagu talinaya culummo ma hayna noo talisa aqoonyahan ma hayna noo taliya maantay inaan social media sheekh soo istaago oo mikrofon soo qaato oo hadlo meel ka hadlo mid kale meel ka hadlo maxay faa'iideynaysaa meeshan gaala tashtay oo raba inuu qiil u raadiyo wiilashan qaniiseenta iska dhigaya iyo zino inuu boos u falo gaal raba meeshan ku tashtay culummada dumarka yaani hal iyo labada hadlaaya dumarkan ku soo badanaya xildhibaanada raggan ku soo badanaya xildhibaanada ee qurbaha ka imaanaya uma imaanayaan wadan jecli uma imaanayaan dal jecli waxay u imaanayaan dana qaasa barnaamijkan yaa waxa riixaya waa dadka qurbaha ka imaanaya dalkeena dadka jooga ee dalka jooga ee wax ku bartay ee aqoon-yahanada ha iska qabteen dadkan noo riixaya in dhinaca qaniiseenta loo bato horta intaasan ka leeyahay midda ah culummadana waxaan leeyahay culumooy intay istaagtiin dalkan adinka culummo u intay istaagtiin yaa aqoonyahan iyo culummo iyo xildhibaano adinkoo isgarabsanaya soo saara qodob diintan islaamka ku qotoma oo noogu dara dastuurka noo dhigan si nooga haro xeerkan ay gaalada soo dhoofteen sidoo nooga haro culummada taasaan leeyahay waliba xeerkaas waxaan dhihi lahaa ha lagu daro dumarka xuquuqdooda diinteena way u helayso laakiin Soomaali hadaan nahay kuma dhaqano ha lagu daro qodob ah in gabdhahan maalin walba inta ilmaha laga dhalo looga tagayo qodob qabanaya ragga Soomaaliyeed yaa oo ilaa heer maxkamad loo saarayo ninka intuu gabar ilmo ka dhalo ka tagay ka dhaqaajinayo yaa kan ku inkirayo intaba xuquuqda dumarka shareecada islaamku waxay nasiiso meeqaan
aad u sareeya laakiin Soomaali haddaan nahay ku dhaqankii ayaa meesha ka baxay islaamaha qaylqaylinaya ee barnaamijkan xeerka qoyska riixayana annaga midaan dhiganay baan dastuurkeena ku darsanaynaa oo culumadeena iyo aqoon-yahanadeena ay noo dhirindhiriyaan oo lasoo dhirindhiriyo oo la og yahay wuxuu yahay baan ku darsanaynaa midkan gaaladan soo sameeyeen oo dhaqaalaha malaayiinta ku bixiyeen hadduu dan noo hayo dhaqaalaha abaarta maanta Soomaaliya baahida dadka u dhimanaya ay ku bixin lahaayeen wax dana nooma hayaan waa see wiil qaniisa yaa ay caadi uga noqotaa Soomaaliya waaye in qaniiseyntu caadi naga ag noqoto yaa oo wax caadi ay noqoto dadka ka mid ah bay rabaan waxa ay wadaan hadafka maanta ay leeyihiin barnaamijkan la riixaya waxa waaye sinaduna inay caadi naga ag noqoto qaniiseentuna inay wax caadi naga ag noqdaan way xeerka ay riixayaan waxa idin leeyahay culumada waan ku celcelinaya aqoon-yahanada u istaaga xeer u hiilinaya gabdhahan maalin walba la kufsanayo gabdhahan maalin walba ilmaha looga tagayo lagu dayacayo nimankan lesbanka oo naagaha iska dhigayo naagahan la isleeyahay waa iskursadaan xeer ka hor imaanayo oo ilaa tiirka saaraya ya Soomaali hadal afka wax laga sheego kuma baqaan qofka tiirka markii la saaray ku baqaan culumadeena intaasaan baaq dheer ugu daahay khayrka hana waafajiyo dhamaantiina waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh